wacan oo wanaagsan daawadayaal waa taxanaha taariikhdii tagtay tilmaansigeeda iyo soo tabintii Gugac Media waa barnaamij cusub isla markaana waa qaybtiisii koowaad kacaankii warshadaha ee qarnigii 18aad ka hana qaaday Yurubta galbeed wuxuu dhaliyay in la baadi goobo wadamo loo iibgeeyo badeecadaha warshaduhu soo saaraan isla markaana laga helo alaabta ceeriin ee warshaduhu u baahan yihiin awgeed reer galbeedku waxay tartan u galeen inay kala boobaan dadkii dhul hurday dhulweynaha Afrika sababihii gumaysiga qaaradda Afrika u yimid waxa ugu muhiimsanaa saddex kelmadood oo xarafka ga ama ca ka bilaabma waxayna kala ahaayeen gumaysi ganacsiga gaaleyn oo afka qalaad lagu yiraahdo colony commerce Christianity soo galidii gumaysiga ee Soomaaliya saddexdaas arimood waxa uu weheliyay Afrikada kale aysan la wadaagin gumaystiyaashii kala qaybsaday dhulweynaha Soomaalidu degto mid kasta dan gaar ah oo muhiim u ah qorshaha mustaqbalkiisa kuna salaysan isgaarsiinta iyo xeeladaha military ayuu ka lahaa geeska Afrika maadaama juqraafi ahaan Soomaaliya ku taal meel muhiim ah sida la ogsoon yahay Soomaaliya kumaysan jirin dalalkii Afrika ee dawladaha reer galbeedku ku kala qaybsadeen shirkii Berlin ee sanadkii 1884 dhacay maxaa yeelay Soomaalidu waxay ka tirsaneed maamulkii Cusmaaniyiinta ee Turkigu hogaamin jiray gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxa Cusmaaniyiinta wakiil uga ahaa Masaarida halka gobolada koonfureed ay wakiil uga ahaayeen reer Saciid Barqash oo xarunteedu ahayd jasiiradda Sinsibaar haddaba isweydiintu tahay sidee bay gumaystayaashii Ingiriiska Faransiiska iyo Talyaanigu ku soo galeen geyga Soomaaliyeed